Asalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Halkan waxaan kasii wadaynaa lecture-keenii Basic Cybersecurity Email Forensics ama Forensics Analysis of Emails. Waa baaritaanka ilaha ama source-ga ama nuxurka waxa waaye content-iga emailka si loo isticmaalo ama loogu isticmaalo caddayn loona ogaado marka qofka dhabta ah ee diray emailka ama qofka helay emailka, taariikhda iyo waqtiga la diray emailkaasi si loo ogaado. Marka diiwaanka ama faahfaahsan ama isdhaafsiga emailka si loo ogaado iyo ujeedada qofka emailka dirayba. Marka baaritaankani wuxuu ku lug leeyahay baaritaanka sida metadata iyo raadinta ereyada muhiimka ah ama keyword searching-ka. Baaritaanka waxa waaye port scanning loo yaqaano iyo aqoonsiga cidda qortay emailka ama authorship attribution loo yaqaano. Marka ogaanshaha waxa waaye khiyaanooyinka emailada lagu dhex sameeyo ama email scams-ka ayaa ka mid ah. Marka hababka loo isticmaalo email forensics-ka ayaa ah number 1 waxa weeyaan header analysis la yiraahdo, waa falanqaynta header-ka. Header analysis waa baaritaan xogta qarsoon ee metadata. Baaritaan waa xogta qarsoon ee metadata ee ku jirta emailka weeyaan. Header-ka wuxuu ku kooban yahay macluumaadka diraha ama qofka emailka diray, macluumaadkiisa, macluumaadka qofka emailka loo diray, wadada uu emailka uu soo maray, serveryada uu ka gudbay markii emailka la soo diray. Mararka qaarkood header-ka wuxuu noqon karaa header pen abuur ah oo spoofing ah sida hore aan soo sheegnayba, marka si loo qariyo aqoonsiga qofka emailka diray. Sidaa darteeda baarayaashu marka waxay si faahfaahsan u falanqeeyaan header-ka si ay u ogaadaan marka xogta saxda ah. Paid tactics ayay noqon kartaa ama farsamada dabinka ayuu noqon karaa. Habka marka baaruhu wuxuu diraa email ayuu diraa oo si gaar ah waxa waaye oo leh sawir ama qurxoon oo email professional ah ayuu diraa ama file ku xiran server-ka si uu isagu u maamulo. Qofka laga shakiyay ama laga shakisan yahay uu furo emailka loo diray, server-ka marka wuxuu diiwaangeliyaa IP address-kii qofka. Baarayaashu marka waxay ogaadaan meesha uu joogo qofkaasi ama qalabka uu isticmaalayo. Haddii qofka isticmaalo proxy server, waxa la diiwaangeliyaa IP address-ka ama IP-ga proxy-ga ayaa la diiwaangeliyaa. Haddii proxy uusan bixin diiwaano ama logs-ka, baarayaashu waxay isticmaali karaan waxa loo yaqaano Java applet ama HTML ActiveX object ayay isticmaali karaan, kuwaas oo marka soo saari kara IP address-ka computer-ka qofka dhibaatada geystay. Marka 3 waxa weeyaan server investigation ayaa la sameyn karaa ama baaritaanka serverada. Habkan waxa marka lagu baaraa la yiri nuqulada emailka server-ka ama waxa waaye diiwaanada ama server logs-ka ayaa lagu baaraa. Waxaa lagu ogaan karaa marka halka emailka ka yimid iyo cidda dirtayba. Haddii emailka laga tirtiro computer-ka isticmaalaha, mararka qaarkood waxaa laga heli karaa ISP server ama internet service providers-ka sida Hormuud iyo dadka internetka bixiyo shirkadaha. Proxy server-ka ayaa sidoo kale lagu ogaan karaa maadaama marka serveryadu ay keydiyaan nuqulo email muddo cayiman. Waxaa kale oo marka la baaraa SMTP transfer protocol serveriska oo laga heli karo marka xogta sida marka waxa waaye lambarada kaararka bankiga iyo xogta milkiilaha sanduuqa ama email box-ka. Si kastaba ha ahaatee, marka serveryadu waxay marka keydiyaan xogta muddo kooban ay keydiyaan, waxaa dhici karta in qaar ka mid ah ISP-yada ama shirkadaha internetada bixiyo aysan la shaqeyn marka baarayaasha ayaa dhici karto saas xogta ku heli waayaan. Marka number 4 waxa weeyaan network device investigation ayaa jiro. Marka baaritaankani oo qalabka shabakada ama network-ka
waa habkan waxaa marka lagu baaraa diiwaanka ama logiska laga helo qalabka shabakada sida routerska iyo firewallska iyo switcheska ayay baaraan. Marka waxaa loo isticmaala marka in lagu ogaado halka uu emailka ka yimi iyo habkan marka waa mid adag waxaana badanaa la isticmaalaa marka server logiska aan la heli karin ama ISP-da ama proxy aysan keenin logiska ama xogta ama aysan la shaqeynba dadka oo dambiilayaasha baaro. Waxa weeyaan software embedded identifiers loo yaqaana, waa aqoonsiyada ku dhex jira softwareda weeyaan. Mararka qaarkood softwareka lagu qoraa emailkan wuxuu ku daraa xog qarsoodi ah ayuu ku dhex daraa. Xogtan marka waxay ka mid noqon kartaa sida custom headerska, MIME content ay noqon kartaa ama transport neutral encapsulation. Marka xogta la baaro waxaa laga heli karaa marka sida doorashooyinka emailka diraha ama qofka diray, magaca faylasha ama BST, usernameka Windowska ama MAC addresska ay computerka ayaa meeshaasi laga heli karaa. Marka macluumaadkani wuxuu si weyn marka u caawiyaa baarayaasha ururinta cadeymaha ay loo baahan yahay faraha softwareka qofka diray emailka. Habkani wuxuu marka aqoonsadaa softwareka loo adeegsaday dirista emailka. Waxaa lagu ogaan karaa iyadoo la baarayo headerga sida qofka helay emailka iyo xmailer headerka ayaa lagu ogaan karaa. Marka waxay muujinayaan nooca softwareka iyo nooca versionka softwareka uu yahay iyo barnaamijka lagu diray emailka. Macluumaadkani marka wuxuu ka caawiyaa baarayaasha inay ogaadaan marka computerka qofka diray emailka inay qorsheeyaan baaritaan wanaagsan, inay helaan cadeymo dheeraad ah. Intaas oo dhan ayuu ku caawinayaa. Marka aad mahadsantihiin, maanta intaasaan kusoo koobaynaa. Assalaamu calaykum.